إلهي حدود في عن هدان ليا لأنه نولش أدونك وينو معانا ما أتددك ودن وحيلي نولش وفهم لعنهي نولش وحنو فهم لعنهي وأمحي حدودك إنك إلهي نور حييبا ماشا كبحي حدودك هدان هجاجي سنو نولش أدونك يتأخر إلهي بنو هجاجين إلهي بقرآن كيسي نوغوش يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبغى إلهي كعب صدا أمورتي سؤال وحنا كدجنا فضيد من كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يقولي قفك همجي سكدجا الدنيا وحو كفكر يا والدنيا وحو كشغين يا والدنيا وحو كصيحنا يا والدنيا وحو كسوكع يا والدنيا وحو كهلا يا والدنيا وحو إيجا يا والدنيا قفك همجيس الدنيا وكدجا بالنبي يقولي أرميه صودا إلهي بري قلبه وككل الشيرين يا نولش الدنيا دنا فقر بالله بدأ إنه الله صار يا فقر ولي أنا كبحي بالله بدأ إنه الله صار يا أرزاق دنا أنت إلهي أقدر مويان إن كلامه هلا برسول يقولي ومن كانت الآخرة همه نك همجيس كدجا بالنبي يقول آخره معناه قام حي يعني ملك استوجوج إلهي بكوك عبصونا يا صلاة ديبو إلى علينا يا صون كيبو إلى علينا يا حق دتكو سكيل إلى علينا يا حق جارك سو إلى علينا يا حق دتكو لنو اللي هيبو سكيل إلى علينا يا دم بيجو إلى علينا يا وناق أيو كشقينا يا هم يجي سو آخره عمل آخره دي سكر دعوة وكد دكتور يا هاي عمل آخره دي سبت بعدين ينا ودي رأيه هو قبنا يا مر والبا نك هم يجي سكر دقيقة ونبي يقول آخره قلبي سا إلى هاي كدقة غني هضن تنما ده قلبك إلى هاي سياح قفكم ماشى وكان نقضى عيدنا وقلبك ماشى غني كان نقضى أنا وهالكي وقلبكم يقول عن مدن هبل ونن مليون ديرة ورقدها ماها واحد بن آذن كقلبك سا غنى ده قلنا يا غنى ده قلبك وحق ليا وأمرك قلبك وجستو إلى هاي معرفة دي سي آخر ده وين كده همي سنك كدقة أبو النبي قول آخره قلبك إلهي هذا تنما وجبوا حيا أرميه صورنا إلهي بس قصة الريا أدويدنا يدو دليسن أو أصن دليسن أي هاست ما داب رسولك يقول أدويد مؤمن كواي دون هاد كاغا ما أدو كدب السعداء مثلا دب السعداء يا سيا كدب السعداء هاد أدويد بالي رقف أدويد واسطة هاركا أدويد دين تيلا السعتاء أدوية آخرة دب الصعوتا هذا ترى أدوية أيان وجسن وآخرة دي بكج جسن وحال لمتها ننيري هارك أيان سوق بنايا ما سوق بنكريست ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يقول ما هلو قفك هم يجلس أدوية كدقة ما هلا بالنبي يقول إلا وحي إلهي وقدر ما نوحك لا ما هلو marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo nagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hadoogaada adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay ka gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin waxaad noqotaa bay yiraahdeen culimadu sida doonta waxa loo isticmaalaa bariga misabada maxaa laga ilaaliyaa biyo inay galaan haday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxa saaranba way qarriqmi sooma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin haday adduunyadu qalbiga ay ka gasho adiga waxa ku saaranba wadagiyo ugu dad badan ba maanta way dageen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu maal qabeen booha ninka umada ugu khayr badan booha Abdurrahman bin Auf maal qabeen booha tobankii jannada loo bishaareeyna kamid booha Uthman bin Affan maal qabeen booha tobankii jannada loo bishaareeyna kamid booha Jarir bin Abdullah al-Bajali ogaas booha ajil saxaabada nabi Muhammad raga ugu qiimo badan booha saxaabada rasuulku
tujaar bay lahaayeen, cuqaal bay lahaayeen, shucaraa bay lahaayeen, dhakhtarray lahaayeen, umaraa bay lahaayeen, fuqaraa bay lahaayeen, mucallimiin bay lahaayeen, culamay lahaayeen, ogaasyay lahaayeen. laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xagga way ka wada sinaayeen iyagu, xagga way ka wada sinaayeen. kooga amiirka ilaa kooga maamuurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen, si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen. cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay mataqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan, xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan, aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn. abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay wasalam. wuxuu ahaa bagaashul ahaa, dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi. alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay. cumar baa arkay ninkoo sii socda. kaale ya abaa bakar ilaa ayna? wuxuu idhi de waan shaqo tegayaa oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin, soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo. muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax, khaliifata rasuulillaah weeyaan. mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan, meesha ma soo dhigan isagu. innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay? ar muxuu socdaa? waa lacag fiican heshid, meelahana si fiican ha u jajabsatid. ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walba. iyaku sidaa ma ahayn. mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan. mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay, waa adeeg ummadeed, ummadday u adeegayaan. ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo. abubakar uu yaabay, war ciyaalkaygan reerkaygana ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule, anna kaa shuuraynaynay adu noqo, horta halkaa fadhiiso, ma haleelaysid haddii toole. waa la shuureeyey, waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan, neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan. 2 sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abi bakr sidiiq allaha raalli ka noqdee, inankiisii cabdiraxmaan ibni abi bakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday. cabdiraxmaan bana cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi. markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji. wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta wax adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina, dhulkaa iibiya, lacagta ka soo baxda dhulka 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi, intay nii soo hadhana ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi. cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay, war maxaad leedahay? aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiya halkee? baytalmaalka. oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku adu qorteen oo reerka siinaya 2 sannadood ayuu aabbahay qoranayay. dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxa uu nagula dardaarmay lacagta in halkayga lagaga celiyo, baytalmaalka lagu celiyo. cumar binu khadaab baa loo keenay. cumar uu ooyey. abubakr sidiiq oo uu yidhi abubakar oo qabriga abubakar buu dul tegay cumar. wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi, waadna daalisay buu ka yidhi. sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi. 2 sano iyo dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas. xukaamta zamankeenna ka warrama. waxaasi maxaa keenay? waa alla ka baq. ilaahay bay ka cabsanayeen, aakhiraday ku xisaabtamayeen. markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey, xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey. koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey, xaqii dadkana uu iska ilaaliyey. waa koogii faqiirka ahaa.
سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام با كسو أشكتوتي maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tiri waliba ceelkaana aniga leh iyadu hadama la ogow isaga iska leh waa been abuurasho Uthman bin Affan amirka muuminiinta u yeeray Saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamida Saciid ibn Zayd Abu al-A'war markaasuu leey waa laga soo dacwooday Saciidow وياك سو دعوده سلانتا با كا سو دعوته دوقدا او maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay iya la leeyahay oo macal ceelka iyada leh markaas ya amir almu'minin anu waxaan ka maqlay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taa ka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaatabu nabigu yiri maalinka qiyaamaha waxa lagu cuquubayn doonaa todobada dhul inta silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelino la oran doonaa jiido la kac lamana kici karayo maanu xadiiska nabi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahu haday ugu been abuuranaysa buu yiri indhaha ka qaad hadilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yiri dhulkii uga kacay ha qaadatay bursiya waa in dhabeesh dam markaas ay oran jirtay way habaarkii Saciid baa igu dhacay way habaarkii Saciid bin Zayd baa igu dhacay ayadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ay ceelkii ku dhacday bal ceelkii bay ku dhacday lagama ba soo saarin halkii ba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaq bini aadan ku ciyaar ma ma anu nabi maxamed ka maqlay taa ka in la ego dhul xaqanaas ninka gardarro ku qaata todobada dhul ba qiyaamaha qoorta loo geliya oo lagu yiraahdaa la kaco jiid lamana kici karabu nabigu ma jiidi karaayo maanu xadiiska nabi maxamed ka maqlay may kula tahay Uthman inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu haday ugu been abuuranaysay buu indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yiri waxaas waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga ka joojinaya waa maxay waa alla ka baq marka ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hortaalo xaq bini aadan inaad u badheedha ku dhiiran maysid laakiin goormo qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro سادرتي ولا ليال إلهي إنها نصر نقولها توبت كأنه إن يربان الدنيا جوجنا إن ير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بريتولي نول بوحة ولا كل مدونة كما ورقبوا ما شق قبرجاج ونقون قبرجاج ونقون كما ورقبنا بركة ولا الوين عن آخرك وحسابتنا آخره مديرو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي بأشيء قيامه مديرو حقنا وكادر يهي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارنت وزدوده بعثت أنا والساعة كهاتين لو ذا فرض نبي قسكو درريي فردا يا مردسدا يا فرد حدا ابو نبي قسكو قبتي مرك ابو نبي يري أنا يا ساعة قيامته سدا لبدا فرض اسكو خيغا ما اسكو خيغنا ابو رسولك يري marka ilaahayna hanu soo noqono han ka baqnay ilaahay qulu la ilaha illa allah la ilaha illa muhammadur rasulullah diinteena ma aragtaan han ka shaqeyno oo shaqada diinta culimada iyo macallimiinta oo kaliya ka mas'uul ma ahaynaya jamaacadade qof kasto muslima diinta xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummadda islaaxigana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib دعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية بين العلماء dadka ilaahay xaqiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadu dhanba maanta dacwada u baahan muslimkii baa u baahan in salaada loogu yeedho
oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas-uuliyadana xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummadiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiqa shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambaysee kiina xaadirkaee maanta ila joogow kiina maqan gaadhsii fa ruba muballaqin awcaa min saamicin iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunkao dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah innaguna ina diinta inaan ka shaqayno wada niyooda insha allah dad badan oo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro ducadoona sa u ducayn mayna insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo siyaadiyo daacadda allah inoo macaneeyo dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba allah inoo hadeeyo madaxdeennana wixii diintiiyo dalkiiyo dadka u daacada allaha tuso muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo nin walba alluu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado dad badanoo xaadiriinaya kuwa qaybinoo duca dalbay baa jiree mid walba alluu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbadda ilaahu ka qaado caafimaad sariica ilaahu sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayna ilaahu hanagu qaban yaa allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan haddaad noo dembi dhaafin ayaa noo dembi dhaafi amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra